Bismillahi Rahmani Rahiim. Videogan wuxuu inoo noqonayaa videogii labaad. Waxaan doonayaa inaan uga hadlo qaabka loo soo geliyo saliska iyo qaabka loo fiiriyo waxyaabaha iibisay. Hadday noqon lahayd waxyaabihii kaashka ahaa, saliskii kaashka aad gaday ama kuwii deymaha ahaa. Marka si aan saliska u soo geliyo waxaan tegayaa meeshaan ay ku qoran tahay POS, Point of Sale. Waxaan tegayaa haddaan ku dhufto wuxuu keenayaa qaanadii saliska. Haddii laba farmasho oo kale leedahay, farmasho 1 iyo 2, waxaad dooranaysaa meeshaan ay ku qoran tahay location. Marka alaabta 3 qaab baa loo raadin karaa. Waa qaabkan aad sawiradooda u jeedid iyo qaab halkan aad ku aadinaysid gacanka barcode readerka koodkii ku qornaa daawada aad ku aadinaysid, iyo haddii aad daawada magaceeda garanaysid inaad halkan ku qorto. Marka waxaan isku dayaynaa labadaba inaan isku sharaxno. Tusaale ahaan daawo haddii aan dooranayo Simply, sawirkeedii halkaan ayay ii taallaa. Tusaale daawada hooseyso kale aan dooranayaa, click baan siinayaa kaliya, saas ayay igu soo gelaysaa meesha. Mid kale haddii aan dooranayo, click baan siinayaa, iyaduna qaabkan ayay igu soo gelaysaa. Marka waxaan doonayaa inaan daawooyinka magaranaysa u soo geliyo halkan inaan ka raadiyo. Tusaale ahaan waxaan gelinayaa labada xaraf oo u horeeya haddaan qortid ama 3 xaraf oo u horeeya si automatic u soo gelinaya. Waa kan inoo soo geliyay. Haddii aan rabo ka waran daawo la yiraahdo AD, iyadana wuu soo geliyay daawada AD. Marka dhammaan daawooyinka halkan kugu soo gurayaa aad gadaysay markaas. Marka mid walba tirada ka gadaysid halkan pluska ayaad ku daraysaa ama halkan inta ku dhufatid ayaad ku qoraysaa. Waxaan leeyahay 4 xabaan ka gaday tan 6 xabaan ka gaday, 3 xabaan ka gaday, tan 2 xabaan ka gaday. Marka mid walba waxaan ku qorayaa inta xabaan ka gaday. Okay, haddii aan inta ku qoro wuu soo saarayaa mid walba qiimaheeda saa u jeedid. Totalkan halkan ayuu ugu qorayaa. Marka halkan waxaa kugu jira expire date-kooda. Mid walba waxaad dooranaysaa expire date-keeda. Waxaa laga yaabaa hal daawo oo kale oo 2 qaab ama 2 expire date inay jirto. Marka labada expire haddii leedahay halkan kaaga soo saarayaa. Tan oo expire ma laha, tan ma laha. Marka daawooyinka expire kale halkaas kaaga soo saaraya. Marka waad dooranaysaa. Halkan waxaad dooranaysaa qofka saliska sameeyay oo gabadhan oo kale sameynaysa saliska, iyada ayaad dooranaysaa. Taariikhda salisku dhacay oo kale maanta haddii aad joogto sideeda u daynaysaa, haddii shalay tahayna waad dooranaysaa. Marka waaba intaas. Marka intaas samaysid kadib haddii cash wixii lagu gaday cash salis uu yahay waad dooranaysaa. Marka cash iyo multiple pay baa la isticmaalaa inta badan. Labada baan kala sheegay. Cashka oo kale waa akoonka main-ka ah oo maaragtay lacagta ku dhacdo oo dhan oo inta badan la isticmaalo. Automatic uu programsan yahay. Tusaale golis bay inta badan akoonada golis dadku isticmaalaan u badan yihiin. Marka hadda golis ay tahay cash bay iska dhahayd automatic akoonka uu galaya. Haddii akoon kale isticmaashay e-dahab iyo maaragtay akoonno kale hormuud ah oo kale, iyagana halkan ayaad dooranaysaa. Marka waxaan leeyahay waxaan dhahaynaa hadda cash haddii aan dhahno automatic wuxuu noogu darayaa akoonkii. Saa u jeedid wuxuu noo soo saarayaa rasiidkan. Haddii aad rabtid rasiidkan waa iska xiri kartaa inuusan kugu soo saarin. Marka waxaan isku dayaynaa daawooyin kale inaan gadno oo markaan aan akoon kale gelino. Tusaale ahaan babygaan aan gadnay 2 xabaan ka gadnay noocan. Cafwan, labadan daawaan gadnay. Expire date-kooda aan gelinaynaa. Tiradan ka gadnay aan gelinay. Tirada marka halkan waxaan leeyahay waxaan dhahayaa 13 xabo oo kale. Saa u jeedid wuu soo saaray. Then waxaan dhahayaa staff service. Macnaha waxaan dooranayaa qofka daawadan aan ka gadiyay ama qofka saliska sameeyay waan dooranayaa. Marka intaas sameeyo taariikhdan aan doorto waxaan dhahayaa multi-pay. Waxaan dooranayaa akoonkii aan lacagta ka saaray. Tusaale ahaan e-dahab baa maaragtay lacagta lagu diray. E-dahab baan dooranayaa. Finalize baan dhahayaa. Marka haddaan finalize automatic e-dahabkii u galayaa. Marka multi-pay-gan qaab kale ayaad u isticmaali kartaa. Tusaale ahaan qof ayaa wuxuu kuu dhiibay lacag gaaraysa $500 oo cash kuu dhiibay. Cash ahaan buu kugu dhiibay. Saa u jeedid cash ahaan buu kugu dhiibay. Marka wuxuu kugu leeyahay balance $156 soo maaha. Marka waxaad ugu celinaysaa halkan aad dhahaysaa arrow si aad ugu celiso lacagta kugu lahaa
lacagta akoonka ka saartay baad dooranaysaa waa golista kadibna waxaad dhahaysaa finalize payment akoonkii lacagta ku dhacdayna dooranaysaa kadib waxaad dhahaysaa finalize marka lacagtiisina waa u celisay adigana lacagtaadii way kuu soo dhacaysaa ujeedid waxa weeye waxaa laga rabay intaa totalka 500 buu bixiyey cash ah 340 baad adigu lahayd 156 waa loo celiyey cash ah intaas ayaa kuu soo hartay total bedka waa intaas marka qaabkaana u isticmaali kartaa qaabkaas cash saleska aad buu fududahay waxaan filaya inaad fahanteen waxaan rabaa inaan fahansiiyo qaabka loo soo geliyo ma garanaysaa deymaha oo kale marka tusaalahaan waxaan qoraynaa daawadan oo kalan deyn ka dhigaynaa iyo daawadan la yidhaahdo labadan daawo waxaan ka dhigaynaa inay deyn yihiin expire datekoodaan gelinaynaa waxaan dooranaynaa qofka maaragtay saleska sameeyey halkan waxaan kasoo gelinaynaa qofka deynta qaatay tusaale waxaan dhahaynaa hadduu kugu jiri oo kale magaciisa baad qoraysaa hadduusan kugu jirin haddaad soo gelinaysa haddii ugu jira qaasim siraar oo kale hadduusan ugu jirina balastan ku dhufanaya hadday ganacsi tahay goob ganacsi business baa dhahaya hadduu shaksi yahay qofka deynta ka qaatay shaksi baan ku qoraya marka waxaan dhahayaa yaasir baa iga qaatay yaasir axmed numberkiisuna waa intaan yaasir axmed marka intaas sameeya waxaan dhahayaa safe haddii aan safe dhaho wuxuu iisoo saarayaa yaasir axmed lacagta laga rabay saa ujeedid $33 marka multiple bayna dhihi maayo cash na dhihi maayo waxaan dooranayaa markaan credit sell meeshaan ay ku qoran tahay credit sell haddaan dhaho deyn ahaan bay ugu gelaysaa qofka marka automatic way u tegaysaa deyntii waa kadhow weeye lacagta lagu leeyahay intaas guud ahaan qaybtan waxa weeye waa qayb aad u fudud intaas uga baxaya waxaan doonayaa inaan sharaxo qaybaha kale oo ah qaabka aad u fiirin lahayd saleska aad samaysay iyo raabika marka intaanan u gelin qaybaha saleska list saleska ama saleskii aa horaa samaysay halkan hoose waxaa kugu jira recent transaction waxyaabihii ugu dambeeyay aad iibisay halkan kugu jira haddaad ku dhufatid waxaa arkaysaa salesyadii ugu dambeeyey sales ugu dambeeyey yaasiin baan gadnay salesyadii horena waa kuwa marka haddii aan kuwaan wax ka bedelaya ama delete garaynayo halkaan baan ku dhufanaya delete haddii aan wax ka bedelayana edit baan ku dhufanaya tusaalahaan saleska ugu dambeeyey baan wax khaladnay oo kale edit baan dhahayaa edit haddaan dhaho tusaalahaan tan 6 xab baa laga raba 5 xab baan u geliyay 6 baan uga dhigayaa markaan 6 uga dhigo deyn baan ku celinayaa waxaan dhahayaa okay deyn ahaan buu igu soo celinayaa meeshii saa ujeedid wuuna update gareeyey haddaan recent transaction tago wuxuu ka dhigay 40 iyo wuxuu ka dhigay I think recent transaction baan dhahayaa sidii lagu ka dhigay saa ujeedid marka iyadana waa qayb maaragtay fudud markaan ka noqonayo saleskii qaybta saleska halkaan ayaan ku dhufanaya labada fallaadh oo baag ah baag haddii aan dhaho wuxuu keenayaa khaanadii salesku ay kusoo dhacaysay oo dhan uu dhex keenaya saa ujeeda marka page labaad bay leedahay page labaad haddaan rabin inaan doortid oo kale halkaan ayaa imaanaysaa show inter ay meesha ku qorantahay baa all dhahaysaa marka all dhahaysa wuxuu kuusoo saarayaa all saleskii meesha soo galay buu kuusoo taxaya saa ujeeda marka wuxuu isugu kaa darayaa deyn iyo sales cash sales labadaba marka haddii aad rabtid inaad kala saartid oo kale deymaha iyo saleska qaybtaan ay filtert ku qoran tahay unbaad imaanaysaa waxaad dooranaysaa payment status waxaa leedahay due haddaad dhahdid deymihii kaliya kuusoo taxayaa saa ujeedid sidoo kale waxaad dhigi kartaa waxyaabihii la iibiyey beedhka ah bes itus iyagana uu kuusoo taxayaa saa ujeedid marka hadda beedhka waxaan niri natus bilihii sanadkii u dambeeyey marka waxaad dooran kartaa beedhka ama duuda maanta oo kala dooran karta halkaan ayaad imaanaysaa date range ku qoran tahay waxaad dhahaysaa today haddaad dhahdid wuxuu kuu saarayaa today wixii cash lagu iibiyey sidoo kale todaydeeda ii joogto waxaan dhihi karaa dhow waxyaabay deynta maanta la bixiyey kaliya iisoo saar iyadana kuu saaraya halkaa deyn marka aad bay u fudud tahay haddii aad rabtid inaad deyntaas oo kale bixisid oo kale ama deymihii hore aad bixisid oo kale waxaad leedahay deyntii unbaad dul imaanaysaa
cafwan deymi waa kuwan oo kale deyntii baad u imaanaysaa dhuuda meesha ku qoran tahay baad ku dhufanaysaa ama waxa action intaad timaadid waxaa dhahaysa add payment waa isku mid labada midka doontid marka waxaan leeyahay dhuuda ku dhuf markaan ku dhufto wuxuu leeyahay fariinta lacag baa u diraysaa SMS qofka lacagta ku leeyahay oo waxa weeye deyntii lagu lahaa meel SMS ahaan ugu diraysaa inuu soo diro mise waa xasuusinaysaa hadduu programka isticmaalo oo email ahaan baa ugu diraysaa marka waxaan leeyahay soo geli deynta oo kale add inuu lacagta bixiyey oo kale hadduu lacagtooda bixisada in wuxuu sidee u doonaysaa hadduu qayb ka mid bixiyeyna qaybta uu bixiyey baad gelinaysaa kadib akoonkii baad dooranaysaa waxa weeye akoonka wuxuu ku diray e-dahabka oo kale dan waxaa dhahaysaa safe marka dhahdid wuxuu kuu safe garaynayaa lacagtii aad iibisay ama deyntii qofka uu bixiyey automatic kuugu safe garaynayaa aad bay u fududahay qaababkan oo dhan waad isticmaali kartaa sidoo kale halkan waxaa ka fiirin kartaa saleska adoo jooga surface staff oo maaragtay qofka saleska sameeyey oo kale qof walba arki kartaa inta sales uu sameeyey Yasmin oo kale waxaan fiirin karnaa inta sales ay sameysay haddaa location kala duwan leedahay 2 xarumood ama 3 xarumood information Cumar oo kale waan fiirin karnaa inta sales uu sameeyey maanta saajid waa kan today waa dooran kartaa عمر ما أنت وحنا سمعين فارح ما أنت وحنا مسنجدين think كودا من باقي وحسن صح مالمي هران وفيرين كرتا قفل بقى أنتوا بدأي يوحي لمذا إن وعاد بوفو ده غيب سلسكا إن محرجيني هنا تفانتين إن ده دابعني سيدني يدا نواكم برنت في رجعنا برنت كده هيسا إن هدي جيران وحبابات فهم ويدين إن شاء الله ويسوي دين تونتون مع سنتين